sidaad sheegtay shirkado waxaa jira isgaarsiina oo bixin waayay cashuurihii iyo maaragtay lacagii kale lagu lahaa hadday noqoto xagga liisanka ay isticmaalayeen marka wasaaraddu iyadoo eegaysa xeerka isgaarsiinta Somaliland xeer number 50 2011 oo awood u siinaya wasaaradda inay maaragtay liisan kala noqon karto ama ruqsadda shaqada ee shirkada isgaarsiinta haddii ay kasoo bixi waayaan shuruudihii lagu siiyay ruqsadda waxay kala noqotay ruqsadda isgaarsiinta Nation Link Telecom iyo African Online Ltd oo waxay muddo sanad iyo badh baan u yeerinay toos baan ula xiriirnay waxa kale oo sameynay jaraa'idkan ugu qornay idaacaddan ka baafinay maamulkoodii noo yimaadaan inay iska bixiyaan lacagii ku waajibay liisanka ahayd marka maadaama ka dhagaagadeen oo wixii qaranku waajib ugu lahaa goliseedan liisankeeda dib haween ku sameynay waxa kale doon halkan ka sheego baryahan dambe waxa aad soo noqotay oo wax meel walba ka dhacday noqotay in shirkadaha isgaarsiintu ay jabiyeen amarkii dawladda ahayd in $100 wax ka yar lagu isticmaalo shilinka Somaliland iyadana talaabaan ka qaadayna shirkad kasta oo lagu helo inay jabisay amarka dawladdu ay ku joojisay in $100 wax ka yar lagu maaragtay isticmaalo dollarka waxa weeye talaabaan ka qaadaynaa maantana halkan waxaanu fariintan gaarsiinaa shirkadaha isgaarsiinta in si degdeg ah ay maaragtay arrinka u joojiyaan sidoo kale waxaan uga baahanahay shirkadaha isgaarsiinta inay wasaaradda la soo xiriiraan oo la soo socodsiiyaan markii la soo degaan qalabka isgaarsiinta marka koowaad waxa weeye tirada taawarada horta magaalooyinkeenu ku dhex yaala aad bay u fara badan markaad eegtid waxa iyadu jirto khalad oo kale in shirkad waliba taawar ay leedahay taagto adduunka wax la sameeyo taawarada shirkaduhu way wadaagaan salahan xaafado kale hadii looga baahan yahay adeeg isgaarsiineed waa in shirkaduhu ay wadaagaan hal taawar halkii imka 2 iyo 3 la iska agtaag taas waa meel arrinka waxa jira qalab lagu qiyaaso inuu sax yahay radiation ka soo baxaya iyo inaanu ahayn waxa jira hay'adaha adduunka WHO waxay sameeyaan range ama radiation ka soo baxaya in la aqbali karo jira marka hore aan u sheegnay qalabkii lagu qiyaasay gacanta ku haynaa ilaa aan qalabka keeno qiyaasi karno radiation ka baxaya inuu yahay kilo bahnaayeen kale maaragtay kama sheegi karno oo dooda maaragtay ma go'aamin karno laakiin taa ku sheegi kara waxa in tirada taawaradu ay aad iyo aad noogu fara badan yihiin oo xadkii loo baahnaa aan ka badnayn salahan hadii Hargeysa uga baahanahay 40 taawar kaba soo qaad inta sample waxaad arkaysaa inay 80 ama 120 wax ku dhow ay ka taageen waayo shirkad waliba iyada taawarkeeda iyadoon aan la wadaageen shirkadihii kale ay taagaysaa marka wasaaradda wax noo siyaasada in wax la yiraahdo infrastructure ay shirkaduhu wadaagaan